ciyaar wax lagu kala qaadanayo oo abaalgud ruuxa lagu siinayo oo inta loo tartamo jaa'izo loo tartamayo sidaana wax lagu helayo saddex ciyaarood kaliya ee shariicadu ogolaatay in jaa'izo lagu kala qaato waana mid ku timid xadiidka Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir sabaqa waxa la yiraahdaa waa jaa'izada iyo abaalgudka la siiyo ruuxa tartanka ku baasay sabaqa baa la yiraahdaa marka jaa'izadaasi ma ay jirto illa fi naslin ya aw khuffin aw hafir yani dir lagu toog dhisanayo ama leeb ama waran ama seef ama xabad ama madfac ama saaruuq wax la toog dhisada oo toogta lagu baranayo shishka taa wax waa lagu kala qaadan karaa talabaadna waa khufka waxa la yiraahdaa bimaana waa geela tartankiisa waa geela lagu tartamayo isagana wax lagu kala qaadan karaa bishuruutihi tasaddexaadna waa xaafirka waa qoobleyda tartankooda oo fardaha dameeraha baqlaha iyagana tartankooda waxba lagu kala qaadan karaa saddexda waxaan ahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maya lahwi kale iyo ciyaar kale iyo tartan kale oo wax lagu kala qaadan kara ma jiro xadiidka Tirmidhi Abu Daawud Nasa'i iyo qeyrkood baa soo saaray Tirmidhi baa tahsiiniyay Ibn Hibban iyo Sheikh Albani iyo qeyrkoodna way saxiixinayaan waana madhabul jumhuur in ciyaaraha saddexda waxaan ahayn waxbalka wixii aan ahayn aan waxba lagu qaadan karin waa madhabu jamaahiri ahli ilmi waa sidaas daraadeed orodka iyo muxuu ahay banooniga iyo ciyaarahaas kale iyo waxa lagu kala qaadanayo waa wax aan saxsanayn